موسى شيخ عمر waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo isagoo kaalin weyn ka soo qaatay dhismaha maamuladii kala duwanaa ee gobolka soo maray iyo sidoo kale dhismaha maamulka Jubbaland waxaana uu soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddaba xildhibaan Muuse oo soo gaaray gobolka ayaa waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo waxaana uu ugu horreynba la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada sida maamulka degmada uu horkacayo gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Xareed odayaasha dhaqanka uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha guurtida ee deegaanada Daawo Suldaan Cabdi Aadan Xasan iyo qaybaha kale ee maamulka ku jira. xildhibaan Muuse oo maanta sameeyay kormeer ballaaran ayaa waxa uu soo maray goobaha muhiimka ah ee degmada sida isbitaalka weyn ee Khaliil isagoo halkaas kula kulmay maamulka isbitaalka iyo bukaanada halkaas jiifa. waxa uu sidoo kale kormeer ku sameeyay wadada laamiga ah ee uu dhismaheeda haatan socdo. xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu booqasho ku tagay goobaha ganacsiga sida suuqyada degmada isagoo ugu dambeyn soo kormeeray saldhigga booliska iyo qaar ka mid ah xeryaha ciidanka ee degmada ku yaala. xildhibaan Muuse Sheekh Cumar ahna gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran ayaa ah mas'uul si weyn looga jecel yahay gobolka waana siyaasi inta badan looga bartay garab istaagga bulshadiisa. ربنا سيمك هاي والله بصوا بأيو سعد علينا مركب هور السبع عشر ربنا سيمك